xaalad biyo la'aaneed oo aad u qallafsan ayaa ka taagan gudaha magaalada Xariirad. Wararka ka imanaya magaalada Xariirad ayaa tibaaxaya in biyo la'aan baahsani ay soo food saartay dadka ku dhaqan magaaladaasi. Biyo la'aantan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku soo booday halka ceelka mooteerka soo qaada oo ciladi ku timiday. Haddaba dadweynaha reer Xariirad ayaa wasaaradda macdanta iyo biyaha waxay cod dheer iyo cod gaaban ugu dirayaan in si dhaqso ah loo soo gaadho isla markaasina lala soo gaadho gurmad degdeg ah oo xagga biyaha ayaa saddexdii cisho u dambeeyay magaalada Xariirad ahayd mid guud ahaanba aanan kuwa gabaabsiya. ceelka mooteerka ayaa waxa mooteer aad u fiican balse cilad ayaa ku soo booday. haddaba shacabka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay la tacaalaya biyo la'aanta soo noqnoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnaa magaalada Xariirad waxay ka mid tahay magaalada ugu ballaaran gobolka Salal iyada oo leh buuro waaweyn sida buurta Libaaxley Garigoon. magaalada Xariirad biyo la'aantan soo noqnoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iyadu mid marba marka ka dambeysa sii siyaadisay. magaalada Xariirad ayaa haddaba shacabku waxay wasaaradda macdanta iyo biyaha baaqayla dhaaneed baaq hoos ahaaneed ugu dirayaan in si dhaqso ah loola soo gaadho biyo iyada oo muddooyinkii ugu dambeysay ee ceelka biyaha amba mooteerka soo qaadaya ay ku soo booday cilad xagga farsamada ah. shacabka ayaa iyagu u taagaya dhanka wasaaradda macdanta iyo biyaha in ay baaq degdeg la soo gaadho xaaladdan biyo la'aaneed ee soo kordhay muddooyinkii ugu dambeysay iyadoo lagu jiro xilli xagaaga isla markaasina cimilada korka ee heerkulku magaalada Xariirad uu gaarsiisan yahay 430. xaaladdan biyo la'aaneed ee soo noqnoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iyadu loo aaneynaya mooteerka ceelkaasi oo ay ku soo booday ciladii. sidoo kale shacabku waxa ay haatan ku sugan yihiin waqti kulayl oo isla markaasina cimilada heerkulku ay tahay kulayl. Cabdisamed Maxamed, wararka gobolka Salal.